mudane gudoomiye aniga waxaan soo jeedin lahaa dhowr arrimood marka ugu horeysa horta waxaan rabaa wasaaradda maaliyaddu haddii ay arrimaha ciidanka ka damqanayso aad baan u soo dhaweynaynaa waana runtii dhiirigelinaynaa arrimaha ciidanka in priority la siiyo laakiin haddana ma rabno in ciidamadu ay noqdaan waxa miiska la soo saarayo haddana aan iyagu helaynin wixii laga hadlay ama aanay gaaraynin lacagta 17 milyan ah iyo lacagta 5 milyan waxaan uga baahanahay mudane gudoomiye faafaahin ah lacagtaasi sida ay u baxayso tusaale ahaan wasiirku wuxuu yidhi October November iyo December waxay ahayd haddii dawladuhu joojiyeen horta dawladihii bixin jiray sababtay u joojiyeen waa inaan ogaano golihii baarlamaankaana xaq baan u leenahay dawladihii bixin jiray waxan sababtay u joojiyeen labo haddii ay joojiyeen mar hore idiin sheegeen inay joojin doonaan oo dhowr bilood inta caalamku sida caadiga digniin buu bixiyaa waxay yiraahdaan xilligaas ay idinkaga egtaa waxay ahayd in lagu soo daro budgetkii hore maadaama la og yahay inay October joojin doonaan wax hadda emergency ku yimid ma ahan filaya tan kale ciidamada laga hadlayaa waa kuwe iyada laftirkeeda waa loo baahan yahay ciidamada gobolada iyo dawlad goboleedyadu ku jira qodobka kale ee laga maarmaanka mudane gudoomiye waxaan soo jeedin lahaa hadday ciidan tahay oo ay tahay ciidan emergency oo dhibaataysan oo furintiga ku jira sida wasiirku noo sheegay madaxyada kale ee dawladda lacagaha laga jaro ama hal la gooyo 70% ciidamada hal loo wareejiyo hana laga siiyo mushaarka baarlamaanku ku jiro kan xafiisyada dawladdu ku jiraan ciidamada hal loo wareejiyo laakiin lacagtan 3 bilood oo sanadka 2 bilood oo sanadka ka dhiman almost waa 22 milyan waay 23 milyan 22 milyan aniga waxaan qabaa inayna hadda ku habboonayn in si emergency lagu ansixiyo haddii ay jiraan ciidamadaas lacagta u baahan markii hore dawladihii bixin jiray inaan ogaano sababtay u joojiyeen iyo maxaan ku yiraahdaa cidda la siinayo labo haddii ay lagama maarmaan noqoto emergency uu jiro in madaxyadeena dawladeena aan ka bixino budget lacagtana lagu soo daro budgetka cusub ee maxaan ku yiraahdaa la ansixin doono 2019 ee geli doono inta marka laga tago faafaahinta lacagtan oo dheeriya meesha ay ka timid iyo maxaan ku yiraahdaa sida loo bixinayna waa u baahanahay iyo askarta la siinayo waa mahadsantiin